السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Sakariye oo ka soo hadlaya magaalada Burco. soo dhawow sheekh. waxaan jecelahay laba su'aalood inaan weydiiyo sheekh. waa tahay soo dhawow. su-aasha koowaad waxay tahay sheekh dad badan waxaan ka maqalnaa iyagoo sheegaya qof dhintay inay yidhaahdaan hebel wuxuu ahaa weli siraata ama heblaay waxay ahayd weliyad siraatata halkaa weli siraataa sheekh mii jira ama qabrigiisa ama si kala maasira. su-aasha labaad wadaadada qaarkood waxay yidhahdaan awliyada waa in la xuso marka awliyada ma la xusi karaa xukunkeedu se waa maxay? asalaamu calaykum. waad mahadsantay. labada su-aalood. weli siraad weli siraad. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah. horta qadiyadda ku saabsan dee welinimada iyo qofka weli noqon karaa sifaadkii tilmaamaha uu leeyahay waynu ka hadalnay. qadiyadda markaas siraadashada ku saabsan waa dhici kartaa oo waqtigii nebigaba alayh isalaatu wasalaam oo dhacdo inaga sheegnay saxaabada qaar in iftiin waxa weeyaan uu hor qaaday iyagoo nebiga calayh isalaatu wasalaam goor dambe oo habeenimaa ka yimi. waa dhici kartaa qofka in ilaahay subxana watacaala iftiin aan masderkiisa ama isha uu kasoo maaxay innagaana inoo muuqan in ilaahay subxana watacaala u yeelo, laakiin maaha taa macnaheedu qof kasta oo taasi ay ka muuqato in weli ilaahay yahay. waxaa dhici karta inuu shaydaanku laftiisu qofka iftiin ugu yeelo si uu dadka uu ugu lumiyo. shayaadiintuna arrimaha noocaas dadka ay ku liminayaan aada iyo aad bay u isticmaalaan. waxaa dhici karta qof dhintay inay isu soo ekaysiyaan oo deetana isagii ay isaga dhigaan, iyadoo aynu ogsoonahay in ilaahay qur-aan ku sheegay qof dhintay inaanu adduunyada dib ugu soo noqonahayn ilaa suurta la afuufayo dadkii dhintay xabaala ay kasoo baxayaan. waxaanaynu aragnay dad leh sheekh hebel baanu aragnay sheekh hebel beri hore dhintay. waxaa dhici karta suuradiisa lafteedii inay isu soo yeelaan haddii qofka sawirkiisa uu garanayo, ama dee sawir kale oo qofkii loo malayn karo inay isu soo yeelaan. waxaa dhici jirtay waqtigii nebiga calayh isalaatu wasalaam shayaadiintu inay xabaalaha inay asnaamta dhex galaan itana sanamka ay ka dhex hadlaan dadka ay moodaan sanamkan inuu la hadlaayo. haddana way dhacdaa in xabaalaha qaarkood dadka ay wax kala hadlaan, dadka qaarkoodna ay u qaataan inuu qofkan xabaasha ku jira weli ahay isaga uu la hadlaayo. taasina wax dhacaysa ma aha oo qofkani mar haddii uu dhintay ma hadli karo, adduunyada wax ku saabsan qof ka hadli kara isagu ma aha. hadduu ka hadlayana waa adduunyadii weli tasaruf uu kusii leeyaye talooyinna dee waa la arki lahaayo xoolihiisi lama dhaxleen, gabadhiisii lama guursadeen, hadduu madaxtinimadiisii lama wareegeen, hadduu aakhiro wax kasoo maamulayo oo barzakha uu kasoo maamulayo tolyo halkaa uu kasoo bixinayo. haddii arrintaasi ay dhacaysana cidda ay ka dhici lahayd u horreeya u mudaniyuu noqon lahaa nabigeeni maxamed alayh isalaatu wasalaam. marna waa dhicin wax badanoo diinta ka mida la isku qabsadaye muxuu rasuulku calayh isalaatu wasalaam maalin uu hadli waayo odhan waayey saasaa saxa. nabiga calayh isalaatu wasalaam waktigii dhimashadiisa iyar ka dambeysa waxyaabaa qaar la isku khilaafay, marada mar waa la isku khilaafay. almuhim qofka iftiin iyo waxaa lagu arko waxaynu eegeynaa siduu imaamu shaafici yidhi xaalkiisaynu dib ugu noqonaynaa. su-aasha kale su-aasha kalena waxay ahayd awliyada ma la xusi ma karaa? la xusi karaa? xusku dee macnayaal badan buu qaadan karaa oo hadalkan imika aynu ka hadlaynaaba dee waa xusid, laakiin waxaan filayaa dadkeenu hadda jeraale xus haddii lasoo hadal qaado waxay uga jeedaan ma loo dhigi karaa tusaalehaan wax ziyaaro lagu magacaabo oo kale. in badan baynu aragnay iyada oo la leeyahay waa siyaaradii sheekh hebel ama weli hebel ayaa la dhigayaayoo waa la xusaya. waxaan leenahay booqashada xabaalaha waa ka siman yihiin dadka muslimiinta ee geeriyooday. booqasho gaara oo xaq gaara ay u leeyihiin dadka waxa weeyaan ay dadka qaarkood awliye markaa ku tilmaamaan horta ma jirto. waa ta labaad, booqashada xabaalu waxay leedahay shuruud bay leedahay iyo axkaam gooniya. shuruuddeeda waxaa kow ka ah inaan safar loo gelin xabaalaha la booqanayo. waayo nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu sheegay 3 masjid mooyaane meel kaloo tegisteeda ilaahay loogu dhowaanayo inaan safar loo geli karin. waa masjid alxaraam masaajidka nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo masjidu alaqsa oo baytulmaqdis waxa weeyaan ku yaala. qabri markaa booqashadii safar loo geli karaa haba yaraatee ma jiro. xadiidka nebiga calayh isalaatu wasalaam ayaana arrintaasi ka hor imanaysaa. ta labaad, booqashada xabaalaha looma samayn karo waqti cayiman oo lama odhan karo sanadkiiba mar baynu xabaalaha booqanaynaa ama bishiiba maalin heblaayo. waatuu nebigu calayh isalaatu wasalaam ka ducaystay isla markaa ummaddiisana uga dig uhi laa tattakhiduu qabrii ciida,
qabrigayga ciid ha ka dhiganina. ciid wakti kastoo wax la soo celceliyo iyo meel kasta oo wax gaara lagu sameeyo waxaa la soo celceliyaa ciid la yidhaahda. ciid zamaan iyo ciid makaani labadu waa jiraan. marka xabaalaha ciid lagama dhigan karo, yacnaa wakti gaarna looma samayn karo booqashada oo lagu noqnoqdo. qofku waktiga u haleelo ayuu xabaalaha tegaya. kale muhimka waxay tahay waa inuu qofku isweydiiyo horta xabaalaha maxaa loo booqda. haddaad xabaalaha u tegayso dadka dhintay adiga waxaa kugu taraan oo iyagaba aada soo baryayso ama aada magan gelayso. booqashada noocaas waa booqashadii shirkiga ahayd. haddii aada u tegayso ilaahay halkaa kusoo caabudo salaada halkaa ku ajar badan ama ducada ama sadaqada, iyaduna waa booqasho bidcaa oo waxaad iska jidaysatay waxaan shareecada kusoo aroorin. waxa quree loo booqanayaa xabaalaha waa maxay? waxaa loo booqanayaa laba arrimood. alamru alawal in qofka nooli aakhira u kusoo xusuusto. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi fazuuruha fa inaha tudakiru alaakhira. xabaalaha booqda aakhira idin xusuusinaysa. arrinta labaadna waa dadkaa dhintay in loo duceeyo. iyaga camalkoodu wuu go-ay, ama awliye ha ahaadaan ama awliye yaanay ahaan. qof kastoo dhintay camalkiisa wuu go-ay. lafihiisa uma shaqaysan karo oo camal aanu intuu noola aanu samayn waxa weeyaan ma samayn karo. ilaahay subxana wa tacaala ugu dhowaado. cid kalena wax allaale wuxuu u tari karaa haba yaraatee ma jirto. waynagaan arkayna qofku markuu dhinto miyaad aragteen qof la leeyahy weli buu haye isagu salaatuljanaasa uma baahna yaan lagu tukanin. mid walba waa taa loo ducaynayo. saasun baa loogu ducaynayaa. qofku intan uu nool yahay waxaanu qaban kari jirna markuu dhinto qaban maayo. awooddiisa way sii yaraato. inay awood u kordha iska daayo. wax qofkani markii uu noolaaba aan loola tegi jirin markuu dhintayna loola tegi maayo. marka qadiyadda xuska ku saabsan iyaduna kolley masaa-ishaasay dacalada la gelaysaa. masaa-ishaasina intaasi ayaa naga filan insha allahu tacaala. sheekh awliyada ma la baryi karaa? waayo waxaad arkaysaa iminka nin dukaan iska haysto oo kale oo odhanaya awliya allah adeeg isagoo laho awliyadan uu dirsanayo to. markaa sheekh awliyada miyaa la baryi karaa? wax ma la weydiisan karaa? arrinka caynkaas siduu noqonaya? qadiyadda markaa ku saabsan baryadu ama cid in wax la weydiistaa kolley qaybo ayay leedahay. waxaa jira qayb ka midoo dee cibaado ah oo ilaahay cid aan haddii loo sameeyo waxay noqonaysaa shirki. wixii ilaahay mooyaane cid kale aanay bixin karin haddii cid kale la weydiisto waa baryo shirkiga. waana tan qur-aanka kusoo noqnoqotay. ilaahay subxana wa tacala ana almasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axada waman adalu miman yadcuu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ilaa ywmi alqiyaama wahum can ducaa'ihim gaafiluun waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaa wa kaanuu bicibaadatim kaafiriin. baryadaa la baryayo dadka dhintay ee waxba aan maqlahayn ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay tahay cibaado iyaga la caabudahayay. sida in la weydiisto caruur qof dhintay. carruur yaa bixin kara? allah subxana wa tacaala waxdahu. ama in caafimaad la weydiisto. waidaa maridtu fahuwa yashfiin. ilaahun baa wax shaafiya. dhakhtarkan dawada bixinaya iyo qofkan kuu ducaynaya waxba ma shaafi karaan. waxaanay wadwadaan waa sabab weeyi. ama in la weydiisto tusaale ahaan qofkii in hani ilaahay subxana wa tacaala uu ka dhigo, ama qofkaa kale inuu faqiir waxa weeyaan u noqdo. qofkaa dee waxaa la siiyey martabadii ilaahay sifadii ilaahay baa la siiyey. qofka makhluuq sifadii khaaliqa siiyaana waa ku kufriya. waxa uu ku dhacayna waa shirk. waxaa la mida baryada la baryo dadka dhintay. isweydii qofka qof dhintay baryaya maxaa arrintaa ku kalifay? waxaa kalifay wuxuu aaminsan yahay qofkan isagoo dhintay xabaasha ku jira oo laga yaabo inuu baaba-ay. ilaa ambiyadun baa laynoo sheegay, nebiyadun baa laynoo sheegay jasadkooda inaanay ciiddu cunine. dadka kale ciiddu way cunaysaa. jasadkooda waxaa laga yaabaa meeshaa dhisan ee la leeyahay waa qabrigii weli hebel inaanay waxba ku jirno mar hore qofkii ciiddu ay dhammaysay. qofkaa baryaya muxuu u baryaya? wuxuu aaminsanyay inuu maqlayo horta. taasina de waa beenin. qofka qur-aankii uu beeniyey oo qof dhintay waxba maqli maayo. sidaasoo kale wuxuu aaminsan yahay qofkii isagoo dhintay haddana in wax qaban karo uu leeyahay awood oo adduunyada wax kaga qaban karo. taasina waxay ka hor imanaysaa sharciga iyo waaqica labadaba. sharciga waa ka yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam idaa maata bnu aadam inqataca camalu ila min halaath. qofka markuu dhinto camalkiisa wuu go-aa. shaqo dambe uu qaban karaa ma jirto. wixii dee adduunyada uu kaga tegay weli lagu sii intifaacayo, sadaqa jaariya, cilmi lagu intifaaco, ubad uu dhalay oo saalixiino waxa weeyaan u duceeyey. marka qof sharcigaa beeniye buu noqonaya. qofka aaminsan qof dhintay inuu adduunyadii weli tasaruf ku leh wax uu ka qaban karo. caqligii waaqicana way ka hor imanaysaayo qofkani haddii uu adduunyada wax ka qaban karo ama uu soo bixi karo oo
adduunyadan uu cid joogto caawin karo ama dhibaato uu ka difaaci karo muxuu qabriga ka qabanaya qof baa inuu godkaa deganaado jecel guryihiisii iyo qusuurtiisii iyo fiilooyinkiisiina dad kale ay dhaxlaan oo xataa magaciisii laga wareejiyo oo xaaskiisii nin kale uu guursado oo hadduu madax ahaa dadku madaxtinimadiisa u jecel oo inaga aragne cid kale ay la wareegto hadduu suldaana hadduu caaqila hadduu madaxweyne ahaa wa xataa caqliga saxdaa ka hor imanaya weeye in qof dhintay la baryo oo wax la weydiisto saxaabada rasuulku ridwaan ullahi calayhi nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu noolaa isaga u iman jireen oo ay odhan jireen markay abaari dhacdo kale rasuulka ilah ilaahay noo bari roob ha noo keenay qabrigii nebigu calayhi salaatu wasalaam halkii uu ku yaalay iyagoo jooga cumar ibnu khadaab radia allahu canhu markay abaartu dhacday nebiga calayhi salaatu wasalaam mau baryin xataa ilaahay noo bari muu odhan cabaas ibnu cabdilmuطalib oo nebiga adeerkiiya oo qof muslima oo qaraabana nebiga calayhi salaatu wasalaam la-ah fadligaa dadka kala dheer ayuu yihi ilaahay noo bari mucaawiya ibn abi sufyaan yaziid ibn aswad ninkii la odhan jiro oo taabici isaguna khayr badan ahaa ayuu yihi ilaahay noo bari marka waa arrin sharciga caqligaba ka hor imanaysa in dadka dhintay la baryo iyaga wax la weydiisto dadka dhintay waa loo duceeyaa sidaan salaatuljanaasa markaynu tukanaynaba aynu samaynayno iyaga lagama ducaysto iyagana lama baryo waxna lama weydiisto wallahu aclam